الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصوماليات ميلو البيكسوين والسلام يا سلام كبعدي وحن هل كان كسو تشيدين يا كلمة دا سوكو سابسن كليب ما أنت شو قاعد وما أنت عن أركي kiliibkaas oo ay soo duubtay gabadha la yiraahdo Deeqa Afro. runtii kiliibkaas dadku ama Soomaalidu qaabab kala duwan bay uga falceliyeen oo faallada ama commentiga ay ka bixinayaan marka aad fiiriso waa ku kala ra'yi duwan yihiin ma bayna mu'ayyid wa mu'aarid. waxay u qaybsamayaan mid iyada iyo ra'yigii ay soo jeedisay taageeraya iyo mid ka soo horjeedo oo waxa weeyaan radinaya. aniga dheeraynaynin baan rabaa insha Allah taala kiliibka ay walaashu soo duubtay inaan dhowr qodob ka idhaahdo. qodobka koobaad waxaan leeyahay Deeqa Afro horta marka hore yaan la caayin, cirdigeeda iyo sharafteedana yaan meel looga dhicin, yaan la gaalaysiinin sida dadka qaarkood ay waxa weeyaan ay ku qowlayaan. ilaahay wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya nabi Muuse iyo nabi Haaruun idhaba ila fir'auna innahu tagha. fir'aun utaga, fir'aun waaxad gudbay oo xuduudii uu tilaabay. faqula lahu qawlan layyinan, waxaad ku tidhaahaan hadal dabacsan ku dhaha لعله يتذكر أو يخشى. وحلقة يابا إن وحويان وان توبه أو عبصده. marka haddii nabi Muuse iyo nabi Haaruun ilaahay dardaaranka uu siinayo oo fir'aun oo inuu ognahay oo ilaahnimo sheegtay waxa weeyaan qaabka noocaas ilaahay uu amrayo in loola hadlo, deeqana waa ka mudan tahay in waxa weeyaan hadalka loo dabciyo. cidda waxa weeyaan tala u jeedinaysaana hadalka ay leedahay cunfiga iyo dagaalka iyo ceebaynta iyo cirdigeeda in meel looga dhaco ay ka dayso oo hadalkeeda ay u dhigto qaab naseexo iyo talo. waa qodobka koobaad. qodobka labaad, Deeqa Afro hadalkeeda waxa ku jiray inay tiri diinta xaggeeda hayla aadina ama diinta xaggeeda hayla kicina. qodobkaasna walaasha waxaan ka leeyahay iyo walaalaha Soomaaliyeedba maadaama dad muslimiin aynu nahay, ahlu tawxiid aynu nahay, diintan islaamka ee ilaahay inoo soo dejiyay ee aynu sheeganayno waa diin kaamil ah. waa diin aan wax yar iyo wax weyn midna dhaafin. laga bilaabo xataa qofku marka aanu uur gelin ilaa waxa weeyaan janno iyo naar mid uu gelayo waxa weeyaan diintu waa ka hadashay. wax walbo jira iyo wax walbo qofka looga baahan yahay waxay dhaaftay male. sida darteed ayaa nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam xadiidka Abdullah ibn Amr ibn al-Aas wuxuu leeyahay la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. waxa weeyaan midkiin iimaan lagama helin ilaa hawadiisu ay tabac u noqoto, yani naftiisu waxay doonaysaa jeclaysanayso ilaa tabac ay u noqoto oo daba gasho waxa aan la imi iyo sharciga iyo diinta islaamka ilaa ay tabac u noqoto oo daba gasho iimaan lagama helin buu nabigu yiri. xadiidkaas oo culimada qaar kamid ay leeyihiin waa saxiix, kuwa kalena ay leeyihiin sanad ahaan xataa hadduu daciif u yahay macnihiisu waa macno sugan. wuxuu tilmaamayaa qofku doonistiisa iyo jacaylkiisa mar walba inuu ka hormariyo diinta, uu ka hormariyo oo diintu ay noqoto ta horeysa, hawadiisuna ay diinta daba gasho. qodobka saddexaad oo aan rabo inaan tilmaamo walaasha hadalkeedana ku jiray, walaashu waxay tilmaantay anigu diinta aqoon uma lihi, anigu diinta cilmi uma lihi. horta qiraalka ay bixisay way ku saxsan tahay waana ku amaananta. waayo qofku waxa aanu garanaynin inuu yiraaho ma garanayo
waa fadli iyo manqabo iyo wanaag weeyaan waxa loo baahan yahay qofku inaanu dardarin waxa aanu garanaynin inuu ka joogsado sheegana inaanu garanayn qodobka waa ku amaananta laakiin waxaan leeyahay haddii aad qirsan tahay diinta inaanad aqoon u lahayn waxa kula gudboon inaad diinta barato oo aad weydiiso oo dadka cilmiga u leh aad u tagto oo su'aasho sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun haddii aydan garanaynin dadka ahlu dhikriga ah ahlul cilmiga ah aqoonta shareecada u leh weydiiya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u leeyahay marka walaasha waa ku amaanan tahay inay qiratay inaanay diinta aqoon u lahayn laakiin waxaa looga baahan yahay inay ku darto inay diinta barato qodobka afraad walaalayaal ee hadalka walaasha aan ka leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay walaqad karamnaa bani aadama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلهي وحليه ولقد كرمنا بني آدم كحقيقة وان كرامين وان شرفنا وان ماموسني آيات حق الدنب إلهي وحوت المامي وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وحانو كفضلنا وككرمرني مخلوقات بدنو آن أبورني ayaanu bini aadanka ka fadilnay oo aanu ka horumarinay siyaabo badan baa bini aadanka ilaahay u fadilo qiimo u siiyay iyo maamuus waxa kamid ah biniyadiis iyo haykalkiis iyo jid ahaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qaab quruxsan u abuuray walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim ilaahay waa toosiyay oo si qurux badan iyo qaabkan wanaagsan ayuu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka u abuuray mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka waa karaameeyey wuxuu ku karaameeyey inuu caqli u yeelay garasho u yeelay waxa weeyaan taasoo uu kaga duwan yahay bahaa'imta iyo xayawaanaadka iyo mayeedhaanka oo caqligaa la siiyey waxaa loo siiyey inuu ku fakaro ku kala garto oo waxa weeyaan uu ku kala sooco saxda iyo khaladka taasi haddii ay adduunkii tahay karaamada waxa kamid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka uu siiyey markii uu dhinto oo geeriyoodo in waxa weeyaan la duugo oo la aaso oo waxa weeyaan dadka iyo xayawaanaadka laga qariyo cawradiisa iyo jidhkiisa ayaa waxa weeyaan karaamada kamid ah qodobka shanaad walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah mid kamid markuu dhinto inta ka agdhow ee geeridiisa ka warqabta ama og wuxuu ku waajibiyay afar shay kow qofka waxa weeyaan in la maydho si fiican loo maydho qaabka loo maydhayna diintu waa faahfaahaysa